waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal waxaan ka hadlayaa maanta geeska afrika iyo nidaamka socdaalka amba jinsiyadda. Waxaa jirta waxyaabo badan oo dadka geeska afrika iskaga kala gooshaya, hadday soomaaliya ay kasoo jeedaan iyo hadday etoobiya yihiin iyo hadday jabuuti yihiin. eritrea iyadu constitutionkeyga lama garanayo, balse waxaan ka duulaynaa saddexdan waddan: etoobiya, soomaaliya iyo jabuuti. jinsiyadda, sida nationality-ga lagu qaato, sidaad ku noqon kartid qof reer jabuutiya, sida aad ku noqon kartid qof reer soomaaliya oo jinsiyaddii soomaaliya haysta, qof maaragtay etoobiyana oo shaqsigii maaragtay etoobiyana oo xaquuqdii etoobiyaanka uu lahaa oo dhan leh. sidoo kale inaad sidaad ku noqon lahayd qof reer jabuutiya oo xaquuqdii reer jabuutiya oo dhan leh, ambase soomaaliya xaquuqdii soomaaliya oo ah ka noqon kartid xildhibaan, ka noqon kartid maaragtay ganacsade, ka noqon kartid madaxweyne, ka noqon kartid wasiir, adigoo oonan ku dhalan soomaaliya. sidoo kale adoonan ku dhalan etoobiya iyaad ka noqon kartaa xildhibaan, ka noqon kartaa ra-iisul wasaare, ka noqon kartaa madaxweyne, ka noqon kartaa wadani etoobiyana. sidoo kale jabuuti sidaas si leeg, adoonan jabuuti ku dhalan iyaad noqon kartaa reer jabuuti, ilaa madaxweyne, ilaa wasiir, ilaa xildhibaan, ilaa ganacsade aada noqon kartaa. balse waxaa jirta shuruudaa jira. shuruudahaasi haddii aada buuxisid waad noqon kartaa. waxaan ku horeyneynaa dalka etoobiya ayaan ku horeyneynaa. waad ogsoon tihiin etoobiya tiradeedu inay sarey u kacayso. iminka 2015 waxaan maqli jirnay etoobiya waa 90 milyan. iminka 2021 waxaan maqlaynaa etoobiya waa 115 milyan. maxaa keenay tirada etoobiya inay korodho oo de si kayra caadi ahayn ay u korodho? waxaa keenaya walaalaya, etoobiya wadano badan bay xuduud la leedahay: eritrea, jabuuti, soomaaliya, south sudan, kenya iyo sudan. haddaba constitutionka etoobiya wuxuu dhigayaa in sidaad etoobiyaan ku noqotid ood baasaboorka etoobiya aada u qaadatid ood uga noqotid maaragtay qof etoobiyana oo sharciga etoobiya haysta, waa inaad maaragtay baasboorka sidaad u qaadatid, baasboorka casaanka ah ee etoobiya, federal democratic republic of ethiopia, sidaad u qaadatid baasboorkaasi ama sharciga etoobiya oo uga noqotid etoobiya wadani. waxaa constitutionka etoobiya waxaa ku qoran, dadka inta badan uma fiirsadaan, wuxuu ku qoran yahay constitutionka etoobiya af xamashi, luqadda amxaariga buu ku qoran yahay, waxaana uu ku qoran yahay luqadda ingiriiska. haddaba wuxuu dhigayaa luqadda maaragtay constitutionka etoobiya wuxuu dhigayaa marka ugu horeysa wadaniyadda etoobiyan aada noqonayso waa inaad ku dhalatid etoobiya dhexdeeda. etoobiya 9 kilil bay u kala baxdaa, iminka 10 baa laga dhigay. 10kaa kilil mid ka mid a haddaad ku dhalatay etoobiyan baa tahay. markaasi midi waa taasi. midda labaad, constitutionka etoobiya wuxuu dhigayaa haddii labadaada waalid mid ka mida uu dalka etoobiya uu ku dhashay, amba aabbahaa uu ku dhashay, amba hooyadaa uu ku dhalatay, automatically ethoobiyan baa tahay. sharciga ninka etoobiya ku dhashay unbaad la mid tahay, mid ka hooseeyana ma lihid. baasboorka waad qaadan kartaa, safaaradda kugu dhow haddaad dibadda joogtidna waad ka qaadan kartaa. haddii aada joogtid wadanada dariska sida jabuuti iyo soomaaliya, etoobiya, kenya aada joogtidna waad qaadan kartaa. labadaada waalid mid ka mida haddii uu ku dhashay dalka etoobiya, for example waxaa jabuuti ka buuxa maaragtay dad badan
oo maaragtay reer jabuutiya oo kaartesiis kaartiseed kaartiturwa xumbuli balbala ku dhashay meel kasta ku dhashay oo maaragtay cali sabiix dakhil tajuuro ubax ku dhashay laakiin waalidadoodu ay ku dhasheen etoobiya ayaa jirta dadkaasi xaquuq ma u leeyihiin inay baasboorka etoobiya qaataan boqolkiiba boqol xaquuq bay u leeyihiin baarlamaanka etoobiya way gali karaan baasboorka etoobiya way qaadan karaan ra-iisul wasaare way isku sharaxi karaan madaxweyne way isku sharaxi karaan xaquuq kasti oo nin kastoo etoobiya uu leeyahay baad yaad leedahay haddii labadaada waalid mid kamida uu ku dhashay dalka etoobiya automatically waayo constitutionka etoobiya ayaa fasaxaya wayna ku qorantahay iyadoo ingiriisana way jirtaa iyadoo amxaarigna way jirtaa oo waad ka akhrisan kartaa markaasi dad badan baana garanayn waxaan la kulmay 2013 maraan jabuuti iyo etoobiya aan maray waxaa jirtay rag ganacsata reer jabuutiya ayaa loo diidanaa etoobiya dhexdeeda inay ka furtaan LC waxaa la yidhaha letter de credit markaad inaad baac mushtar aad ka samaysay etoobiya dhexdeeda oo markaasi laga lahaa shaqadan waxaa iskale dad etoobiyana iskale iyaa laga lahaa realityga dad etoobiyana male dadka amxaarka iyo tigreega iyaa iska xidhay arrintaasi laakiinse waxay kusoo xidhaan ay yidhaahdeen shaqadaa waxaa iskale dad etoobiyana iskale oo for example waxaa jirta baawuradan waaweyn ee tareelayaasha ee tarogyadan waaweyn ee jabuuti iyo etoobiya u kala xidha u kala gooshaya waxaa maaragtay marshandiiskaasi ethoobiyan baa iskale commercekaasina dad LC letter de credit bananka maaragtay etoobiya ka samaystay baa baac mushtarka ka shaqaysta markaasi sidee maaragtay ninka reer jabuutiya amba ninka reer soomaaliya eligible ugu noqon karaa uga ganacsan karayaa dalka etoobiya waayo waxaanu garanaynin qaarkood waxayna garanayn inay qaarkood ethoobiyan ahaan karayaan waayo haddii labadaada waalid mid kamida uu ethoobiyan yahay waxaad tegaysaa meesha kugu dhow ee maaragtay warqadaha laga baxsho markhaatiyaal baad kaxaynaysaa warqadii etoobiya aad la baxaysaa dabadeedna xaggaasaa baanka etoobiya account ka furanaysaa shirkad ka furanaysaa adiga oo jabuuti ku dhashay oo soomaaliya ku dhashay markaasi uma baahno maaragtay soomaali badan baa ku dhalatay etoobiya oo maaragtay ilaa soomaalida ku dhaqan dalka etoobiya iminka waxaa lagu tilmaamaa 25 milyan markaasi dadka reer jabuuti maaragtay markaad eegtid reer jabuuti oo kaartiyada ku dhashay kaarti jabuuti ku dhashay markaad eegtid amba aabihii baa ku dhashay amba awowgii baa ku dhashay amba hooyadii baa ku dhalatay etoobiya markaasi automatically dadka reer jabuuti baayac mushtar way ka samayn karayaan dalka etoobiya xildhibaan way isku soo sharaxi karayaan ra-iisul wasaare way ka noqon karayaan maayarka magaalada way ka noqon karayaan only thing maaragtay qabanaysa wayaan luqadda amxaariga lagu shaqaynayo waa inay bartaan taasi waa mid weeyaan oo run ahaantii maaragtay dadka reer jabuuti iyo ummad badan oo maaragtay aanan garanayn maaragtay xeerka etoobiya u yaala waayo af xamashi buu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay af maaragtay amxaarig buu ku qoran yahay markaasi dad badan baa iyagu aanan fahamsanayn waxaan soo noqonaynaa dalka soomaaliya la yiraahdo sidee baa jinsiyadda soomaaliya aada ku qaadan kartaa amba iskugu u noqon kartaa qof maaragtay xaquuq ku leh dalka soomaaliya oo ka noqon karaya maaragtay xildhibaan wasiir madaxweyne baac mushtar waxaad doontidna ka noqon xaquuqdii soomaalinimo yeelanaya marka haddii la tir raaco constitutionka soomaaliya waxaa ku qoran oo maaragtay qofka isirkiisu yahay soomaali xaq buu leeyahay dalka soomaaliya xaquuqda inuu maaragtay wax ka barto ka shaqaysto xildhibaan ka noqdo wasiir ka noqdo ganacsade ka noqdo ilaa jagada ugu sarreysay madaxweynaha adigoo ku dhashay etoobiya oo soomaaliya adigoo ku dhashay jabuuti oo soomaaliya iyo adigoo ku dhashay kenya oo soomaaliya ninka ku dhashay wajeer gaarisa ee soomaaliga
automatically maadaamuu jinsiyadiisu soomaalidu waxay u kala baxdaa dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxanweyn, marka aftirsiintaadu hadday soomaali galayso automatically baasboortka soomaaliya xaq baad u leedahay, waana iska soo sharaxi kartaa, xildhibaan waad noqon kartaa, madaxweyne waad noqon kartaa. midda labaad waxaa jirta la convention de Genève wuxuu ay fursad siisay waxa la yiraahdo double nationalityga. double nationalityga amba maaragtay waxaa jeebkaaga waad ku qaadan karaysaa amba boorsadaada waad ku qaadan karaysaa baasboorkii Djibouti iyo baasboorkii Ethiopia, barsaki labada wadanba Djibouti iyo Ethiopia way saxeexeen waxaa la yiraahdo la convention de Genève ee wadanadu waxay saxeexaan double nationalityga in la ogol yahay qofku inuu laba sharci yeelan karo. waa la saxeexay oo maaragtay Soomaaliya qudhadeeda waagii dowladii Maxamed Siyaad Barre way saxeexday, adigoo dhalashadii Soomaaliya haysta dhalashadii Ethiopiana waad haysan kartaa, boorsadaadana way ku wada jiri karaan. waxa weyn waa xeer weeyaan, wax ka mamnuuca maaha. waxaa dhici kartaa askariga markaa ku qabta inuu waxanba waru hayn uu garanayn baa dhici karta, laakiinse xeer ahaan constitutionka Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti saddexduba way saxeexeen maaragtay double citoyennetyga amba nationalityga maaragtay waa saddexda wadanba way saxeexeen. waxaana lagu ogolayn uun 3 sharci inaad jeebka ku wada qaadatid. 3daas sharci jeebka kuma wada qaadan karaysid, amba mid waa inaad ka tagtid. markaasi haddii aad reer Djibouti tahay oo baasboorkii Soomaaliya haysatid oo maaragtay isirkaagu Soomaali yahay, amba se baasboorkii Ethiopia haysatid oo maaragtay aabaha amba hooyadaa ku dhalatay Ethiopia oo baasboorkii Ethiopia haysatid, saddexdaba ma yeelan karaysid. waxaa lagu ogol yahay uun inaad laba u qaadato, mid aad ka tagtid. haddii aan usoo noqono walaalayaal maaragtay xaggan Djibouti haddaan usoo noqono, sidee baad reer Djibouti aad ku noqon karaysaa oo run ahaantii oo xaquuqda dadka reer Djibouti aad u yeelan kartaa, baasboor u yeelan kartaa, shaqo u heli kartaa, tacliin u heli kartaa. waxaa jirtaa way ka yar duwan tahay Soomaaliya iyo maaragtay Ethiopia. Djibouti waxa la yiraahdo adduunka iminka Yurub markaad joogtid amba maaragtay Mareykanka markaad joogtid waxaa la yiraahdo droit de sol. diyaaraddu haddii iyadoo transfer sameynayso amba transit sameynaysa ilmo yar hadduu dhasho oo wadanka uu ku dhasho wuxuu noqonayaa automatically maaragtay Paris ku dhasho amba ku dhasho Washington, ilmahaas wuxuu noqonayaa Mareykan amba Faransiis. Djibouti way ka duwan tahay, waxa weeyaan droit de sang waxa la yiraahdo baa jirto xagga dhiigga ah. markaasi haddii hooyada iyo aabaha ay warqada leeyihiin unbaa warqada helaysaa Djibouti. even haddii aad ku dhalatid Djibouti oo waalidkaagu oo warqada lahayn, for example waxaad ku dhalatay maaragtay dhakhtarka Daarixanaan baad ku dhalatay Djibouti ku yaala Kartiset ku yaala, waalidkaaga aabaha iyo hooyada warqada ma leh, marka adigii waad xayirnaanaysaa muddo dheer baad xayirnaanaysaa bilaa warqado aad ahaanaysaa. waxaa kaloo jirta Djibouti sida reer Djibouti aad ku noqon karaysid waxa weeyaan haddii hooyada iyo aabaha ay warqada leeyihiin ood ku dhalatay Diridhaba, ood Xagaabax ku dhalatay Diridhaba, ood Hargeysa ku dhalatay, ood Yamanta ku dhalatay, amba Yurub aad ku dhalatay, Mareykan ku dhalatay, laakiinse hooyada iyo aabaha ay warqada leeyihiin automatically reer Djibouti baa tahay. haddii maaragtay gabadh reer Soomaaliya nin reer Djibouti ah guursato, sharciga way helaysaa oo maaragtay Djiboutian bay noqonaysaa. haddii gabar reer Djibouti nin Ethiopian uu guursado, sharcigii wuu helayaa oo maaragtay qofkii waxa maaragtay act de mariage buu qaadanayaa, dabadeedna kaarkii buu qaadanayaa, xaggaasuu maaragtay citizenshipki kaarkii ku qaadanayaa. waxaa kaloo jirta
tu afraadi oo dee adduunkao dhanba ka dhaxayso maaragtay loo ogol yahay adduunkao dhan oo wadanadan maaragtay maaragtay wadanadu ay saxeexeen the Geneva Convention oo qaxootiga for example ninka Soomaaliya ka yimid Djibouti magangelyo soo weydiista ee xaggan qaxootiga ku jira waxaa loo ogol yahay period markuu wadankaasi ku noolaado kasoo qaad 10 sano hadduu ku nool yahay ama 5 sano Djibouti ku nool yahay balse uu dambi uu gali waayo inuu eligible u yahay oo maaragtay sharciga inuu qaato uu Djiboutian noqdo waa hadduu dambi gali waayo waa maaragtay xeerarka internationalka u yaala markaasi Djibouti xoogaa bay ka duwan tahay oo maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia balse sina way uga fududahay sina way maaragtay uga adag tahay marka la eegayo maaragtay nin reer Djibouti qof Djibouti ku dhashay oo maaragtay bilaa sharciya oo la leeyahay hooyada iyo aabaha sharci ma leh marka adiga sharci ma helaysid marka la leeyahay way ka yar maaragtay waxaa dhici karta qofkii hooyadii aabihii maaragtay ee sharciga lahaayeen oo maaragtay reer Djibouti ay yihiin hadduu meel kale uu ku dhasho adduunka meel kale uu ku dhasho automatically reer Djibouti noqonaya wuxuu ku noqonayaa waxa weeyaan waxaan maaragtay droit de sang hooyadii iyo dhiigga hooyadii iyo aabihii iyo reer Djibouti oo maaragtay noqonaya maaragtay reer Djiboutian buu noqonayaa marka sidaas baa ayaan usoo bandhigayaa maanta oo maaragtay balse waxaan kusoo yar noqonayaa arrimaha Ethiopia maaragtay sababta ay populationkeegu had iyo jeer uu maaragtay sare ugu kaco waxa weeyaan wadano badan bay deris maaragtay xuduud la leedahay dadkaas oo dhan baa nationality-ga qaata waxaan maqlaynay 2015 Soomaaliya Ethiopia inay ahayd maaragtay 9 milyan iminka 2020 117 baa la sheegayaa andhow baan arkay maxaa keenaya constitutionka Ethiopia u yaala ayaa keenaya inay tiradu biirto nin baa iska soo guuraya oo Soomaaliya jooga oo oranaya maaragtay meeshii aabahay ku dhashay ama hooyadii ku dhalatay baan joogaya xaggaas suude xaggana tiri koob laga qaadaya xaggana ku tarmaya markaasi waa sidaa weeyaan tirada Ethiopia waxay u badanayso haddii aan usoo noqdo xaggan baasaboorka iyo sharciyada lagu qaatay iyo sida maaragtay waxaa mamnuuca inaad 3 baasaboor aad ku qaadatid jeebka waa mamnuuc weeyaan laakiin xeerarka adduunka u yaala wadano unbaa saxiixay wadanada qaarkood maba saxiixinba double nationality-ga markaasi Djibouti Ethiopia Soomaaliya way saxiixeen labaduba inaad 2 sharci aad yeelatid marka amba labadan baad yeelan kartaa amba labadaas aad yeelan kartaa amba labadan baad yeelan kartaa oo jeebka ku qaadan karaysa oo markaad aad socotid barsakay waxaa dhici karta askariga markaasi ku qabta ee maaragtay for example wuxuu kugu arkayba maaragtay baasaboorka Ethiopia aad u sita baasaboorka Djibouti aad u sita buu kugu arkay askarigaasi inuuna garanaynin baa dhici karta maaragtay xeerarka maaragtay Djibouti iyo Ethiopia ay saxeexeen Djibouti waxay saxeexday la convention de Genève maaragtay double nationality-ga maaragtay 1980 Ethiopia wayba ka horeyso maaragtay afartanadii bay saxeexday Soomaaliya 60nadii bay saxeexday markaasi wax khilaafa ma jiro waxaan la diidan yahay inaan 3 sharci yeelatid labada sharci waa waxa weeye waa wax caadiya caadi ahaadaanay laakiin se xaquuq kale badan baa jirta haddii aad maaragtay for example Soomaaliya aad ku nooshahay laakiin se waalidkaagu way ku dhasheen dalkan Ethiopia marti kuma tihid dalka Ethiopia waxaad ku tahay maaragtay wadani baad ku tahay haddii aad Djibouti ku dhalatay waalidkaagu ay ku dhasheen maaragtay Ethiopia marti kuma tihid wadani baad ka tahay sharciga Ethiopia ay oo dhan baad leedahay xaquuqda Ethiopia oo dhan baad leedahay sidaas baan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh